Waad salaamantiin dhammaan asxaabta sharafta leh kusoo dhawaada muuqaal cusub. Insha Allah maanta muuqaalka waxaan idinkugu soo gudbiyo 4 qodob wax ka bari doona noloshaada. Ugu horreyn, noloshu waa mid wajiyo badan leh, xilli kastana ay kugu qaabilayso marxalad aan filneynin. Inkastoo ay jiraan xaalado kugu waajib yeelay nolosha, misna aad xaqiijin weyday ilaa iyo hadda. Taasi waxaanu dhihi karnaa inaadan weli wax ka baran wixii ku soo maray. Haddaba waxaa laga yaabaa in xaaladaha aan ka wada simannahay dhibaatadeedana ay weli jirto. Sidoo kale, sida aan wada ognahay, adduunyadu ma jirto xaalad ku sugan ama waqti ay ku beegan tahay xilliga aad wax qabsan lahayd. Waayo, maalin kasta ayaa laga rabaa inaad wax qabsatid oo aad u soo jeedo waxaad qabanayso si aad u xaqiijiso hadafkaaga. Haddaba isku day inaad ila socotid si aan kugu soo gudbiyo xalqado dhowr ku saabsan horumarinta nafta si aan u noqono jiil ka dhisan dhanka garaadka. Tani oo kale waa waxyaabo iska caadi ah marka laga hadlayo horumarinta nafta. Dad badanna ay rajeynayaan in ay maalin horumariyaan naftooda, halka kuwa kalena ay ku fikirayaan waxyaalo kale. Halkan waxaan kula wadaagi doonaa 4 qodob oo wax ka bari doono noloshaada. Qodobka koowaad, raadinta fursadaha. Marka laga hadlayo in la raadiyo fursado, waxaa dad badan ay ku dhib qabaan, sidoo kalena ay xambaarsan yihiin cabashooyin fara badan. Taasi marka aad fiirisid waa dhibaato, waayo qofka ayaa laga yaabaa inay ku beerto cabsi ama inuu arko wax ayb ah inuu tago meel u weydiisto shaqo macluumaad quseeya xafiiska uu shaqada ka doonto. Iska iloow inaad kala xishooto waxyaabaha dantaada ah oo weydii waxa aad rabto inaad ka ogaatid si aad wax badan uga faa'iidaystid xaqiiqda. Qodobka labaad, barashada xirfadaha. Runtii nolosha waa muhiim in qofka uu barto xirfado si uu ugu maareeyo noloshiisa. Waayo haddii aadan lahayn wax xirfad ah, wax laguma jeedo oo waad iska nooshahay un mooyee. Inaad xirfad barato waxa ay ka caawinaysaa inaad yeelato nolol maalmeed aad ku shaqaysan karto maalin waliba waxa aad qaban lahayd. Inkastoo wixii dhici doono uu Alle kaliya og yahay. Nolosha caadiga ah, qofka haddii uu qabto shaqo sida mas'uul dawladeed, ganacsi, farsamo yaqaan, arday, wariye iyo kuwo kale badan. Dhammaan dadka aan ka soo hadlay, mid kasta oo ka mid ah wuxuu ku seexanaa in birto ay sugayso shaqo. Taasi waxay hagtay waxa uu qofka si maalinlaha u qaban lahaa. Qodobka saddexaad, ku celcelinta wax waliba. Nolosha wax waliba aad qabanayso waxay u baahan tahay inaad ku celceliso si aad horumar ugu sameyso. Haddii shaqada aad qabanayso aysan joogteyn lahayn, micno badan ma yeelanayso. Waa adiga bartay oo kaliya. Waxaa laga yaabaa in mar aad shay qalad u aragtay, haddana shaygu uu shaki kaaga jiro sida uu ahaa. Haddii aad aaminto shakiga oo aad mar kale tijaabiso, waxaa laga yaabaa inaad noqoto wax guuleysto oo macno yeesha. Haddaba ku celcelinta wax waliba waxa ay faa'iido u tahay noloshaada, waayo wax badan aad ogeyn ayaad ka ogaan doontaa. Qodobka ugu dambeeya ahna qodobka afaraad waa wax akhriska. Dhibaato ayay u tahay dadka qaar haddii ay maqlaan wax akhriska, sababtoo ah qofka ayaan fahansaneyn faa'iidada ku jirta wax akhriska, ama waxaa laga yaabaa inuu weydiiyo maxaan akhriyaa. Tani waa faham daro qofka ay ku hayso aqoonta uu sito, balse waxa habboon in qofka uu isbaro wax akhriska. Sidoo kale, tan macnaheedu maahan in ay xun tahay ee waxa xun sida aad fahamtay aqoonta. Jirka qofka bini'aadamka ah wuxuu quutaa cunno iyo cabitaan, balse maskaxdu waxa ay quudataa wax akhriska. Intaan ay kusoo gagabin doonaa muuqaalka. Fadlan muuqaalka ka heshay like star, channelkan subscribe star.